noloshu qaabka ay u dhisan tahay oo dhammi baan leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa. nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo, inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato ma aha. nolosha adduunyo waxaa loo jooga ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira. imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo. si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya, jawaanib shahwaaniya. waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl, boqortooyo jacayl, sultaannimo jacayl, waxyaabahaas oo dhan. waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey. qofka bini aadamka waxaa alle subxaanahu wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta, gaajada, xanuunka, murugada, baqaha, tiiraanyada, werwerka, waxaasoo dhan inuu dareemo. waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo, tiiraanyoodo, werwero, murugoodo. waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxaasi inuu dareemo. kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo. xayaatul insaan baan leenahay markaa haddaynu rabno fahmi alxayaati addunya min awaliha ilaa aakhiriha waa imtixaan, waa mashaqa. laqad khalaqna alinsaana fii kabad yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kaadaxan famulaaqii laa budda min kabad walaa budda min kadx. noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan. waxaa jirta maalan aan odhan karna alfalsafa alcaalamiya marka la isku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan, marka ay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyey, dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan. maxaa dunida sharku u jooga? waxaa laga yaabaa bacd kiristanka ka mid ah, gaar ahaan Jehovah Witness iyo qolyaha la mid su'aalaha koowaad hadiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weeyaan ilaahay hadduu raxmaanur raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan oo u gaajoonayaan caynkan ugu dhacayso miyaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaanama ay jecel yihiin inay ku sawiraan sifaadkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaad ka dhahay. laakiin waxaan leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaalla oo sharxaya alxayaati addunya ma jiro ila alkitaab wa sunna mooyaane. waxaan leenahay dunidatan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taalo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey, waayo waxaa loogu talagalay in la isku itixaamo.